waxaa ka mid ah masaa'ilkan baynu leenahay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xiraa ayuu fuulay waa jabal min jibaal maka isagoo fuushan oo ay la socdaan abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo caliy iyo talxa iyo zubayr ibnu alcawaam waa raggii casharatu lmubashiriin group ka mid iyadoo ay la socdaan ayuu dhagax la dhaqdhaqaaqay markaasuu nebigu intuu ciribta ku dhuftaybu wuxuu ku yidhi ihda famaa calayka ilaa nabiyun aw sidiiqun aw shahiid deg buu ku yidhi korkaaga ma saara nebi iyo sidiiq iyo shahiid mooyaane cid kale korkaaga ma saareen anas ibnu maalik xadiid kaloo bukhaari warinaya kaasi saxiixu muslimku ku yaallay baa wuxuu sheegayaa jabal uxud buu nebigu fuulay isagoo ay la socdaan abibakar iyo cumar iyo cuthmaan saddexdaasi uunbuu sheegay marka kan markaasuu gariiri buurti markaasuu nebigu cagta ku dhuftay dabeetana wuxuu yihi uhbut uxud uxuday sugan fainamaa calayka nabiyun wasidiiqun washahiidaan waxaa korkaaga saaran nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid afartaasaa korkaaga saaranee deg buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani xadiidku wuxuu tilmaamayaa inuu nebi maxamed nebi yahay kow abibakarna inuu sidiiq yahay goob dagaal in aanu ku dhimanaynin labada saxaabiya kalena in la dili doono gacanka gardarani inay dili doonto intaasiba waxay sheegaysaa inuu yahay maxay waa qeyb haddaan kuwii hore ayn soo sheegnay oo dhamme inta badan gaalaynu ka warranayo meelahay ku dhimanayaan markana waxaynu tilmaamaynaa muslimiin saxaabadiisii ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay waa laydin dilayaa geeri caadiya dhiman maysaan nebigii abibakar geeri caadiya ay dhinteen amaa cumar iyo cuthmaan iyo cali iyo talxa iyo zubayr dhammaantood dulman baa loo dilay dhammaantoodba aan bal mid mid u tilmaamno cumar nabigu calayhi salaatu wasalaam oo maro cusub situu arkay maro xidhan nadiifa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ajadiidun thawbuka am ghasiil maradaanad maanta xidhantay miyay cusubtay mise waa maro aada maydhay cumar baa wuxuu yidhi bal ghasiil maya ilaahay rasuulkiisiiya waa midaan maydhay nebigu wuxuu ku yidhi ilbis jadiidan wacish xamiidan wamut shahiidan maro cusub xidho adigoo mid la mahadiya ama mid ilaahay mahadinaya noolow wamut shahiida dhimo adoo shahiida saxaabadii uu nebigu sheegay siday u dhinteen cumar isagoo imaamulmuslimiin ah oo salaad subaxa dadka tukinaya ayaa waxaa soo galay abulu'lu'at almajuusiy mugiirat bnu shucb addoon uu lahaayo persian ee eerani farsamo yaqaan ahaa oo midi soo tuntay labada dhanba afu leh xagga iyo xaggaba wax u gelaysa sita ayaa salaada soo dhex galay dabeetana cumar ayuu dhinaca intuu ka geliyu isu wareejiyey oo imaama uu dhacay 13 saxaabada ka midana miduu dilay iyo miduu dhaawaco ayuu ka dhigay cumar wuxuu u dhintay markaa isagoo salaad ku jira ayaa toorri lagu dilay nebigu siduu sheegayay buu shahaado qaatay cuthmaan ibnu cafaan maalin maalmaha ka mid ah abuu muusa alashcari wuxuu sheegayaa isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu beer soo galay buu ceelka ku yaalay ayuu intuu kaabadda ceelka ku fadhiisto cagaa ku laalaadiyey isagoo meesha fadhiya ayaa albaabka beerta kolba qof garaaca markii dambe waxaa garaacay cuthmaan markuu soo garaacay ayuu abuu muuse u tago wuxuu ku yidhi man haada waa kuma wuxuu yidhi waa cuthmaan ibnu cafaan sog buu yidhaha nebiga kuu sheegay nebigu uu soo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cuthmaan baa albaabka garaacaya raba inuu soo galo nebigu wuxuu ku yidhi idan lahu wabashirhu biljanna calaa balwa tusiibah u ogolow ha soo gale jannadana ugu bushaaree balaaye inay haleeli doontana u sheeg buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam balaaye inay haleeli doontana abuu muusa wuxuu yidhi waan u imi
dabeetana waxaan ku idhi buu yidhi nebigu jannana wuu kugu bishaareeyey belena musiibana waa kugu dhici doontaa ayuu ku yidhi cuthmaan wuxuu yidhi alxamdu lilah wallahu lmustacaan jannadii loogu bishaareeyeyna ilaahay buu mahadnaqay musiibada la sheegayna wallahu lmustacaan buu yidhi ilaahay baanu kaalmaysa waxaynu naqaanaa cuthmaan isagoo amiiru lmu'miniin ah ayaa qolo thawro kacsan oo masar iyo xaggaa ka yimi oo le waxbaanu bedelaynaabaa soo galay madiina dabeetana saxaabadii waxay damacday inay madiina difaacdo wuxuu hi dhiig muslim in la daadiyo ma rabo qofna ma dagaalami karo waxaa la yidhi adiga ha lagu ilaaliyo maya anigana cidiyey dhiman maysa buu yidhi dhammaantiin haddaa i maqlaysaan nin walba gurigaagii qabo wuu wada dareeriyey cismaan wuxuu diiday ciidankii muslimiinta ee madiine joogay inay difaacaan wuxuu kaloo diiday isaga gurigiisa in la ilaaliyo nimankii kacsanaa gurigiisa isku weegaareen magaaladii bay qabsadeen masaajidkii bay tukiyeen waxaa la yidhi nimankii masaajidkiina way haystaane maxaynu yaallaa waxay sameeyaan salaad baa u fiicane haddii ay salaada wanaajiyaan dee la tukada buu yidhi salaadu soo maaha waxay idin tukinayaan salaaddii baa lala tukaday qur-aan buu isna iskaga akhristay gurigiisii oo fadhiya xagga dambe ay gurigiisa uga soo dhaceen isagoo qur-aan dul fadhiya oo akhrinaya ayuu seefta geliyeen dabeetana kitaab qur-aan isagoo akhrinaya lagu duldilay cuthmaan oo ah markaasi amiiru lmu'miniin sidii uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam balaayadaasaa haleshay balwada waanu ku sabray waana la dilay isagana ثالث المبشرين بالجنة أي نوضي ونبي عليه الصلاة والسلام مركو يدي كركاغا مصار نبي يا الصديق يا اللي بالشهيد مو يعني اللي بدأ بس الشوك هذا قاتل علي بن أبي طالب نبي عليه الصلاة والسلام وحو الشاقي إنو الدلي دونه أشقى القوم ضدك ننك أشق السنبك الدلي دونه بالنبي كويري dhafoorka intuu kaaga dhufto oo kaa kale kaaga dhufto ayaa dhiigu gadhka kaa dareeri doonaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cali ibn abi taalibna saasaa loo sheegay in birta halkaa lagaga dhufan doono halkaan lagaga dhufan doono dhiiguna inuu gadhkiisa ka dayi doono ninkaa dili doonaana inuu yahay ashqannaas dadka ka u shaqisan cali wakhtigii uu imaam almuslimiinka ahaa buu xanuunsaday isagoo bukoo jiifa أيا أبو سنان الدؤلي باويمي دبتنا وحد لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا أمير المؤمنين كو والله ما أنت حنون كان وكو عبصر النابوري حنون كان كو هيا سانا ضبكتو عبسي بيلا دينا تجيريو تانو كبغينا عالم أمريكا وحكويدي لكني والله ما تخوفت على نفسي من هذه أنا بيوري كان هيا بغيسان والله إن أنا نفتي لو بغين بيوري وايا بالليلي وحدي النبي محمد بان مغلوله هل كان انت لغا رفتا بدي كاد يدونا وهل كاكل انت لغا رفتا بدي كاد يدونا وقد كاديكو كو عسين او كاكو دلانا اشقى الناس بو اهان دونا سيدي هشير هير ثمود كي قورعي واشقى الناس وها marka cali wuxuu leeyahay war anigu xanuun ku dhiman maayo iska taga iyagu waxay leeyihiin bukaankan ku haya inay nafta ka baxda baan ka baqaynaa calina wuxuu leeyahay aniga nebi maxamed baa ii sheego goob xanuun maaha meeshaan ku dhimanayaaye meel kalaan ku dhimanayaa laakiin bukaan u dhiman maayo buu ku yidhi cali ibn abi taalibna waxaynu naqaanaa niman khawaarija ayaa yidhi muslimiintan isdildilaysa rabshadooda madaxdaba aan leyno xajka isku dhaarsadeen حجك سوي ما دام بيصدر صدين قولنا إنه حق عقبته يكوفة يردنكها وأي عليك تخلصته قولنا مصر يحق أنت عقبته معاوية يو أنا عمر بن عاص نيدلان كوي حق سمي هلين لكن علي بن أبي طالب سقوا صلاة صبح وصباحي أيو كان حلالي هل كون نبي شيء يجيبوا سيفتك كقرفتي يا هل كل شيء يجي سيدي بانو علينا وكو غيريودي waxyaaba caddaynaya dalaa'isha waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam ee saxaabadiisi iyo qaraabadiisi uu ka warramaya
طلحة iyo Zubayrna waxaynu naqaanaa iyaguna dagaal iyagoo ka soo noqday oo mid walba intuu dagaalkiis kaga baxay meel cidla jooga in iyagana la dilay intii uu nabigu yiri waa shuhaday noqonayaan dhammaantoodba dulman baa